magacaygu waa Suldaan Muqaddin Cabdullaahi Cabdi oo jooga waddanka Koonfur Afrika. qasadka aan maanta leenahay doonayno inaan ka hadalno waxa weeye inaan baaq u diro Somali State iyo xukuumaddeeda iyo dhammaan shacabka Somali State. awalan waxaan leeyahay anigoo ku hadlaya codka salaadiinta Somali State meel kastoo ay joogaan iyo waxgaradkeeda dhammaantood baana ku hadlaya. waxaan leeyahay salaanta islaamka ayaan idinku salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan, xukuumadda dowladda state ee Soomaaliyeed uu madaxweynaha ka yahay Mustafa, waxaan leeyahay horta hambaliyo. aad baan ugu faraxsanahay habka dimuqraadiyadeed ee qaadateen ee wanaagsan ee ah daweynta shacabkii dulmanaa ee Somali State. laakiin waxaan leeyahay baaq ugu diraya madaxweynaha dimuqraadiyaddu yaanay noqon mid dadkeeda iyo dalkeeda dumisa, waa inay noqoto mid sharciga ku dhisan oo sharciga loogu shaqeeyo dadka shacabka. waxaa jira dad aad u fara badan oo dambiilayaal ahaa oo xukuumaddii hore ay hoggaaminaysay isla markaana dunuub badan ka gashay dalka, dadkiisa iyo diintiisaba aan waxba ula reebanin. dadkaasi tallaabo fiican baad ka qaadateen, laakiin dadkii qaar sharwadayaala ayaa jira oo dalka gudihiisa jooga, dibaddiisa jooga, social media isticmaalaya, waxyaabo fara badan oo propaganda isticmaalaya. waxaan leenahay dadkaasi dambiilayaasha dadka shacabka Somali State inay il gaara u yeeshaan, iskana ilaaliyaan, iskana fiiriyaan, kana digtoonaadaan dhibaatada iyo mashaakilaadka ay horay u geysteen inay maanta hagardaamo shacabka dhexdiisa geeyaan. madaxweynaha waxaan uga baahanahay inuu tallaabo ka qaado cid kastoo dambiila sharcigana la hor keeno, wax ka baxsan xadgudubna aan lagu samaynin wuxuusan sharcigu siinin. intaa dowladda xukuumadda ayaan siinayaa. waxaa kaloo baaq u dirayaa oon aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynaya ururka ONLF oo tallaabo fiican ka qaatay wada shaqaynta wanaagsan ee xukuumadda Mustafa ee dowladdeegaanka Somali State. habka ay u qaabileen iyo habka ay u wada shaqaynayaan, waxaan ugu baaqayaa ururku waxa uu matalayay bulshooyinka dhammaanteed ee Somali State. waayo aragnimona way u leeyihiin dadkooda inay ka digtoonaadaan wax kasta oo keeni kara khilaafaad, dhibaato iyo wixii la halmaalo. ummaddana inay u shaqeeyaan iyagoo kaashanaya madaxweynahooda dowladda state uu madaxweynaha ka yahay Mustafa. waxaa kaloon iyagana baaq u dirayaa salaadiinta gaar ahaaneed iyo guud ahaan ku nool caasimadda Somali State. aad iyo aad baan leeyahay waxgaradkaasi dhibaato badan baa soo dhacday, inaad ka digtoonaataan. waxaad joogtaan gurigii hooyada 9 gobol ee Somali State. waxayna sharaf u tahay dadka deegaanka degan ayay sharaf u tahay. laakiin waxaan u baahannahay inay gartaan oo ay ka daayaan hagardaamada iyo mashaakilaadka dadka qaarkii ay wadaan. dhaqankooduna muuna ahaan jirin, waayo boqortooyadii ama salaadiintii Somali State baa degan oo joogta. waxaan leeyahay
aniga oo si gaara u salaamaya garaadka ummadda ee Somali State hawlahaasi hawlo ku yaallo weeye inaad wax ka qabato arrintaasna waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan idinku ta'kiidinayaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay dhammaantiin ka digtoonaada dhibaatada ay geystaan sharwadayaashu iyo nimankii dhibka geystay shacabka Somali State geystay aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinayaa saxaafadda oo si wanaagsan uga qayb qaadatay isbedelada ka socda Somali State. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wasalaamaya dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel joogtaba gaar ahaan waxaan si gaar u salaamayaa Soomaalida Somali State iyo guud ahaanba ummadda dalka Itoobiya oo meedaha kala duwan aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa bada saxaafadda saaxiibaday sidoo kale waxaan jeclahay in aan hadalkayga ama dareenkayga aan la wadaago bulshadayda Soomaaliyeed ee ku nool Somali State goboladeeda iyo degmooyinkeeda iyo tuulooyinka intaba waxaan jeclahay maanta inaan waqtiga uga faa'iideysto kelimad yar oo u dirayo xukuumadda madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo xukuumaddiisa aan ku horeeyo xukuumaddu waa xukuumad dimuqraadi ah waa xukuumad isbeddelka ku timid waa xukuumad rabitaanka shacabka inta badan u baahnaa nidaam noocan ku timid waxaan rabnaa markaa nidaamka dimuqraadiyadda ah ee guud ahaan dalka Itoobiya ka hana qaaday gaar ahaanna uu horseedka ka yahay deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar in sida uu yahay lagu xakameeyo oo ummadda loogu adeego oo dadka la baro dimuqraadiyadda waxay tahay iyadoo ay nooca tahay haddana ummadani ma aha ummad nidaam dimuqraadi ah oo qofka rabitaankiisa uu dawlad ku yahay ku soo noolaan jirtay ma aha sadarteed waqti bay qaadanaysaa in ummaddan nidaamka dimuqraadiga la baro waqti bay qaadanaysaa iyadoo ay nooca tahay marka waxa loo baahan yahay in dimuqraadiyaddii iyo nidaamkiina la ilaaliyo oo dadkii loo dhimriyo haddana sharciga u sareeyo markaasaa leeyahay dimuqraadiyadda waxaa ka faa'iideysanaya sharwadayaashii aan ogeyn ee 10 sano ummaddan dhiigooda soo cabiisay oon ognahay 99% weli inay deegaan ku sugan yihiin sidaa darteed waxaan rabnaa iyada oo ummadda u baahan dimuqraadiyadda lagu hogaaminayo loo dabcinayo loo dhimrinayo ilmada laga tirayo haddana sharwadayaasha ka faa'iideysanaya nidaamka layinka in ay sharcigu u qabto oo ayna ku dhex dhuumanin oo ayna ka faa'iideysanin nidaamkan cusub deegaanka bilowga ku ah waxaan rabnaa sharwadayaashii deegaanka dhibka ka soo geysatay 99% waxay joogaan deegaanka waa in sharciga la horkeeno kolka hore waa inuu sharcigu cabsiiyo waa in qalaasada ay ka wadaan in ognahay ay nidaamo badan uga faa'iideysanayaan hab qabiil hab miidiyo hab isku dhac mataqaanaa ay qowmiyadaha walaalahay wada degan in gacanta laga soo qabtaan yaan ugu baaqaynaa maxamuud daahir maxamuud jubba oo ku sugan koonfur afrika waxaan salaamayaa marka hore odayaasha bada saxaafadda waxaan baaq u dirayaa Somali State iyo maamulkiisa madaxweyne Mustafa Xajar insha Allah waxaan baaq u diro waxaa kaloo baaq u dirayaa shacabka degan waxaan salaamayaa shacabka degan Somali State marka hore iyo maamulka horta si fiican buu ku bilowday si fiican uu ku socdaa si fiican oo xor oo dimuqraadiyad oo sinaan iyo cadaalad uu ku bilowday insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu si fiican oo wanaagsan ku dhamaado waxaa jira koox yar oo jaaniskan iyo isbedelkan ka faa'iideysanayo oo rabo inay carqaladeeyaan ammaanka madaxweynaha waxaan u baaqayaa maamulkiisa inay dadka carqaladda wada ammaanka wax u dhimahayo ay qabtaan oo gacan bara lagu qabto loo naxariisto ma aaminsani waayo haddii faraha laga qaado oo shib laga dhaho waxay keenaysaa inay ammaanka ay faraha ka baxo dhibaatana ay ku keenaan dawladdana ay agaha qabtaan ay ka socon weydo waana koox
qowleysato oo 10 sano ay gobolka uu soo maray oo haystay haddana rabaan inay maamulkan ay curyaamiyaan waan ognahay oo dhibaatadii iyo xanuunkii ee gobolka ku rabeen baa weli ka sii muuqda sida awgeed dadka dambiilayaasha ah gruubka asaga ah ee haraadiga ka soo haray in la cafiyo ma aaminsan inkastoo ra'iisul wasaaraha isbedelka uu ku dhawaaqay in la cafiyo laakiin dad aan la cafin karin baa jira oo aanan suuragal ahayn in la cafiyo dadka dambiyaasha galay la yaqaano waaweyn dambi cad galay dadka dhibaateeyay dulmiga geystay in la cafiyo ma magacaygu waa maxamed ibraahim axmed oo ku nool dalka koonfur afrika marka hore waxaan salaamayaa warxaafadda ummadda Soomaaliyeed meel joogta aad baan salaamayaa marka xiga ummadda Soomaaliyeed ee Somali State aad iyo aad baan ugu salaamay anu baaqa aan diray waxa weeye ummadda ku nool Somali State dhibaatadii soo martay dhan kasta lahayd in hadda way aragnimo in gaadha dadku way arkeen in ay dadku yaraan iyo weynaan iyo culimada iyo odayaasha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan way aragnimo ku filan way arkeen inay ka qaataan waxa fiican dawladda hadda dhalatay la shaqeeyaan ay ma taqaanaayay waxa fiican ay raaxaan ayaan aad iyo aad baaq ugu dir lahaa ummaddu way rugmatay dhibaato badan baa gaadhay dhinac kasta markii laga fiiriyo meel u nool ma jirto waxa weeye inay hadda istabaqabataan in qabiil iyo qoys iyo wax ma taqaanaa ummadda hadda eega ay ka fogaatay loo raadraaco oo tuuladii la wada deganaa la isku wada qabsado wax hadda eega ma taqaanaa dadka nacfu ma aha nacfiga waxa uu in la raaco aqoon-yahaniinta iyo dhalinyarada iyo odayaasha la dooranaya ay la shaqeeyaan ayaan aad baaq ugu dir lahaa dawladda Itoobiya oo iyaduna ma taqaanaa Chinaska hadda eega jira iyo ma taqaanaa si isu bedelka hadda ka jira seen ku aragno dadku aragtaan markasta caqabadaha iska jira sida ay ula jinjagareynayaan in loola jinjagareeyo oo dadku ay ma taqaanaa hadda meel kasta adduunka la joogo waa ay arag wax kasta waa dadku meel bay wada joogaan in sida u fiican ee dadka danyarta lagu soo korin karo ma taqaanaa ay dadku ka shaqeeyaan aqoon-yahaniinta la doortayna ay u shaqeeyaan waxa kale oo odhan lahaa dadka aqoon-yahaniinta la doortay dadku yaynuu arkin inuu qof yahay qof shakhsi ah oo bulshada laga soo waa inuu qofku arko inuu dawladda u shaqeeyo oo qof dawladda ka mid yahay yaan loo arkin inuu qofku reer yahay waayo haddii qofkii la yidhaaho qofkaas waa qof mas-uula qofkaas waa qof dawladda ka mid qoyayna dadku u fahmin inuu yahay ninkaasi nin reer hebel u shaqeynaya ma aha nin reer hebel u shaqeynaya waa nin dawladda u shaqeynaya sidaas loo fahmo dadku saasaan ma taqaanaa aqoon dardaarmi lahaa shacab weynuhu dhibaatadii iyo camburkii iyo rafaadkii iyo ciriirigii la geliyey yayna u qaadanin in ay firo dhoontu tahay wax la burburiyo oo ma taqaanaa lagu tunto ma aha waa wax dadka lagu koriyo oo ma taqaanaa dadka soo korisa weey marka waxa dadka soo korinaya in waliba qof waliba uu ka fikro oo uu qaato oo haddii ma taqaanaa dhinac kastaba laga eego ay qaataan saas ayaan ku soo gabagabayn lahaa ana kula dardaarmi lahaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.